duqa degmada Boorama Saleebaan Xasan Xaddi suduwaha wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta dhulka Soomaaliland ee gobolkan Awdal Saleebaan Aadan Samatar iyo suduwaha wasaaradda diinta iyo waqafta gobolkan Awdal Sheekh Xamuud Ladiif Axmed ayaa mas'uuliyiinta Jimciyadda Nuurul Islaam oo ka shaqeysa dayactirka iyo ururinta kutubta Qur'aanka Kariimka ee googooday ayaa ku wareejiyay loogu talagalay in laga dhiso xarun laga dayactiro kutubta Qur'aanka Kariimka ee googooday mas'uuliyiinta Jimciyadda Nuurul Islaam al-Khayriya oo maanta shir jiraayad ku qabtay hotel Sowe magaalada Boorama ayaa uga mahad celiyay xukuumadda Soomaaliland dhulkani ay u bixisay in lagu dayactiro kutubta Qur'aanka Kariimka isla markaasina laga dhisi doono galbeedka magaalada Boorama ugu horeyn waxa hadalka qaatay afayeenka Jimciyadda Nuurul Islaam al-Khayriya Sheekh Cabdilaahi waxaana uu tilmaamay waxaanu maanta rabnay oo soo fadhiisanay halkan inaan u mahadnaqno cid kasta oo ka qayb qaadatay jagada la siiyay ee 30 iyo 30 ka ah waxaan runtii mahad ballaaran u jeedinaynaa waxa weeyaan laga soo bilaabo madaxweynaha wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta wasiirka waxa weeyaan markaa guriyaha iyo guriyeynta iyo waxa weeyaan isku dawayaasha runtii u jooga gobolka Awdal iyo maayirka in ay Jumciyadda Nuurul Islaam oo khayriga ka shaqeysa waxyaabo badan runtii bulshada u haysa أو ككو يهي إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيسا إلالين تيسا إيا أرورين تيسا إيا دريال كيسا إيا السمين تيسا إن أي جمعية دوغو داقين دول كيدن تقود جاقو صدن إيا صدن وإلهي سبحانه وتعالى كتاب كيسا لغو أسطوري دونو لون أدكسن دونو حولها خيريقا أي جمعية نور الإسلام أي هايسو inta kadib waxa hadalka soo gabagabeeyay isla markaasina uga mahad celiyay cid kasta oo ka qayb qaadatay bixinta dhulkani gudoomiyaha Jimciyadda Nuurul Islaam al-Khayriya Jamaal Yuusuf Maxamed waxana uu yiri waxaan maanta u soo fadhiisanay halkan inaan u mahadnaqno xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo garwadeenka ka yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Saylici runtii aan ugu mahadnaqayno kitaabka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala iyo halka ay ka garab istaagtay xukuumaddu gaar ahaan waxaan si gaar ah ugu sii mahadnaqaynaa wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Jamhuuriyadda Soomaaliland Sheekh Xamuud Cabdilaahi Axmed wasiirka wasaaradda markaa wax weeyaan howlaha guud iyo guriyeynta iyo dhulkaba waxa weeyaan iyo Cabdirashiid isku duwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta gobolka Awdal isku duwaha wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta maayirka degmada Boorama dhamaantood waxaan ugu mahadnaqaynaa sida ay noo garab istaageen annagoo ah Jimciyadda Nuurul Islaam al-Khayriya li khidmati al-Qur'aan al-Kariim jimciyadaasi oo runtii baahi weyn u qabtay dhulkii ay ku dayactir lahayd kitaabka Qur'aanka Kariimka runtii dhulkiina markaa ay bixiyeen Absalaan Saha telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Boorama